shirkadda Dahabshiil Group ayaa maanta deeq dawooyin ah iyo agab caafimaad ku wareejisay cisbitaalka weyn ee Boorama kadib baaq degdeg ah oo ka soo yeedhay madaxda caafimaadka gobolka kuwaas oo ka warbixiyay xaaladda adag ee lagula tacaalayo dadkii dhaawacyadu ka soo gaadheen dhibaatadii ka dhacday magaalada. munaasabadda wareejinta deeqda waxa ugu horreyn ka hadlay maamulaha dhakhtarka weyn ee Boorama Sahal Axmed iyo gudoomiye ku-xigeenka ururka dhakhaatiirta Muxyidiin kuwaas oo si weyn ugu mahadceliyay Dahabshiil Group kana warbixiyay baahiyaha caafimaad ee jira iyo sida deeqdani u tahay nafbadbaadin muhiim u ah bulshada. waxaan aad ugu mahadcelinayaa kulley shirkadda Dahabshiil qaybteeda gobolka Awdal shirkadaha gaarka loo leeyahay shirkadii ugu horeysay ee dareenkooda la qaybsata dhacdada gobolka Awdal ka dhacday gaar ahaan cisbitaalka weyn ee inta ugu badan wixii dhaawacmay iyo dee lagu tacaalayo aad baan ugu mahadcelinayaa wad mahadsantiin baan leeyahay. bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa shirkadda Dahabshiil oo ah shirkadii ugu horeysay ee Prefada ee ka soo jawaabtay baaqii aan shalay jeediyay ee caafimaadka ee ahaa in agab caafimaad la soo gaaro degmada Boorama gaar ahaan cisbitaalka guud ee Boorama Hospital waxa weeye qalab caafimaad oo aad loogu baahi badnaa ayay maad aragtay soo gaarsiiyeen waxaana kamid ah sterile grafts iyo maad aragtay infusionno baalahan ma taqaanaa waxa weeyaan infusion sida normasalin iyo dextrose goos oo kale way soo gaarsiiyeen sutureski way soo gaarsiiyeen waa qalab caafimaad oo aad loogu baahnaa aad iyo aad baan markaa ugu mahadnaqayaa dhammaan xaaladda degdega ah wixii maad aragtay agab caafimaad ee loo baahnaa way soo gaarsiisay shirkadda Dahabshiil Group waad mahadsantihiin. Idris Xaashi Dharaar maamulaha Dahabshiil Group ee gobolka Awdal ayaa halkaasi ka sheegay in shirkadda ay ka go'an tahay inay garab istaagto bulshada gaar ahaan xilliyada ay jiraan duruufo caafimaad ama kuwa nabadeed oo degdeg ah. raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaanu taxsi tiiraanyeel la wadaagaynaa dadkeena ku dhintay ee ehelkeena ahaa ee rabshadii Boorama ka dhacday ku dhintay ayaanu taxsi tiiraanyeel u diraynaa waxaan ilaahay ugu rajaynaynaa inta dhaawacana ilaahay u boogadhayo. shirkadda Dahabshiil Group ee gobolka Awdal markay aragtay baaqa ka soo baxay bahda caafimaadka wasaaradda caafimaadka iyo dadweynaha gobolka Awdal waxaanu ka jawaabaynaa baahida ay qabaan ee ugu muhiimsan dhowr boqol oo kartoon oo dawo ah ayaanu soo diyaarinay oo aanu ku wareejinaynaa dhakhtarka weyn si loogu daweeyo bukaanka inaga yaala ee jiifa iyo baahida dhakhtar si aanu ka jawaabno. ugu dambeyn maayirka magaalada Boorama mudane Maxamuud Sheekh Ibraahim Muuse ayaa bogaadiyay deeqda degdega ah ee shirkadaha Dahabshiil Group soo gaarsiiyeen cisbitaalka isagoo tilmaamay inay tahay tallaabo tusaale u noqon karta sida ganacsigu uu door weyn uga qaadan karo daryeelka bulshada iyo xoojinta nabadda. bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto dhalinyarada quruxda badan ee ku dhimatay rabshadii ka dhacday magaalada kuwa xaween dhaawacana ilaahay u boogadhayo waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha caafimaadka gobolka Awdal oo si aad iyo aad waxa weeyaan shaqo wanaagsan uga qabtay siday u gargaari lahaayeen dadka dhaawaca waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale cid kaste oo gacan ka soo geysatay hawsha waxa weeyaan bukaanka ah ee dadkeenii sidii ay u gargaari lahaayeen haday noqoto dawo iyo haday noqoto agab caafimaadba waxaan aad ugu mahadcelinayaa shirkadda maanta aanu joogno ee Dahabshiil Group oo iyadu keentay dawo lana dareen noqotay bulshada gobolka Awdal aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr. deeqdan caafimaad waxa ay qayb ka tahay dadaalada Dahabshiil Group ee ku dhisan u gargaarista bulshada xoojinta adeegyada caafimaadka iyo garab istaagga hay'adaha caafimaadka ee dalka gaar ahaan xilliyada ay jiraan xaaladaha degdega ah.